إيهاس ما ده أوكي وكو هسايا هذا ما قفك هتو كومنت هتو قفك الأهان لها وابك آمس لها لكن قفك كلي ديري قليو تيك توك ما دحس أكو جوجاته dadka kamid madaxooda aan ku joogaata qofka video aan leeyahay aan ka tagin asoo comment ii loof saarnaata kulli share na waa dhexda maanta tan ma ka qabatay inay dhihid okay dib malaha na kugu qaadaha macleesh laakiin ani cad fiican malihi okay tamam هو كدعاء مركا أركا جويجي جماعة مركا مقلة جويجي جماعة مركا فورة جويجي جماعة راح هذا ملدي ذكرى أما ليس كنعا قفكي نعنا ونعس وصاحبك أبو ناكسن إلا قدرتو أدون إيو آخر إلا لصاحبو كتاب كان وحكا في عن ما جيرو إلا لصاحبو سيدا هذا wax kale loo baahna yaad rabtaa inaad sixirto hebel xagee jooga meel heblaayo 10 ka number ee mobilka oo isticmaalo ma garanaysaa over the phone telefonka loo soo marnaya sixirka hello madalamiya maxaad oranaysaa ha sixirka waxay ku xirayaan kelimada ha ereyga ha ama english ku dheh ama carabi ku dheh ama soomaali ku dheh waxa doonto ku dheh ma madala markii lagu yiraahdo ha ba oranaysaa qab wala diminaya taasi waa qaab kale waxa jira inta lagu soo waco lagu afuufayo wixii lagu akhrinayo wixii aan ku sheegayo oo tabacu ma tatlu shayaatiinta wararka oo arrimo ay kulay ilaahay iyagu ogyahay oo shayaatiintu isticmaal bareen waxba lagu afuufaya markiiba dhigta laga geliya sixirkii jirka u gudbaya ha Facebook la soo diri karaa email baa la soo diri karaa Snapchat sawir baa la soo diri karaa clip sawir lagu soo diray ama qoraal lagu soo diray baa lagu leeyahay fiiri akhri waxa kan waad furaysaa furista afurtay sixirka indhihi baa ku qaadaysaa sida dhagta ugu qaadayso sidoo kale bal hadda waxaan dhihi karaa waxyaabaha qaar kood hadda inta dadka daaweyn aan ku arko waxa kamid ahaa in lagu diri karo filmaanto kale geemamka ciyaalka kale very addicted ku noqdaan kale to waxa sixirka qasab ahaan jiray timaha qofka la sixrayo cidiyo qofka midalan dharkii uu ku dhididay kabihiisi waxyaabo noocaas in la keeno oo sixirka lagu sameeyo jinka la adeegsanayo marka la dirayo wuxuu iska ahaan jiray kuwa iska marka fiiriso iyaga dadkooda casriga la socdo iska ribaadiya wax badan aan ogeyn hadda technology-ga socdo darteed oo maadaama bini'aadamku advanced technology gaaray oo technology-da horumartay jinkiina waxa is leedahay sidoo kale bini'aadamka duusan ka horeyninba waa la socdaa marka زوجكيga mustaqbalka waxaan kugu hambalyeeynaya 3 arimood oo anigu ku balan qaadi doono insha Allah koobaad waxay tahay anigu meherkeyga wax culays ama saari doono yacni kuuma cuslayn doono meherkeyga iyadoo aynu ognahay meherku inuu yahay waxa kaliya ay gabadhu xor u tahay maadaama ay farjigeeda ku xalaashanayso wax allaala waxa ay doontana isku meherin karto iyadoo meherkuna uusan lahayn wax cadad ah dariiqada ugu wanaagsan ee meherkana Allah subhanahu wa ta'ala iyo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ina farayba ay tahay in meherka la khafiifiyo sida la ajrigeed anigu meherkeyga ma noqon doono wax maal aduun ah ama maal aduun lagu iibiyo ee wuxuu noqon doonaa wax aniga iyo adiga iyo qoyskan aan dhisaynaba u wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala agtiisan lagu jecel badan yahay sida la ajrigeed meherkeyga aniga kugu cuslayn doono talabaadna waxay tahay guurkeyga sidoo kale kugu cuslayn doono oo ma dhici doonto guurkeyga inaad xaflado qaali ah dhigto in fanaaniin isoo kureyso munkari waxa la keeno hodheelo qaali ah kireyso gawaariye isoo kireyso taashashi dhar qaali ah iibsado يعني ما دعي دونتو حتى هذه أي أودي تهاي أو مال أدون هايسو intaas aa karayso anigu inta kugu mucusleen doono tasaddexaadna waxay tahay waxaan ku ogolahay hadii ilaahay arsaaqad ku siiyo oo ku maareyn karto xaasaskaaga inaad gabar kale la gursato gabar labaad saddexaad ilaa afraad waa hadii aad ku dayanayso qofka ugu mudan in lagu dayda nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam aadna tahay qof ilaahay arsaaqad siiyay oo maareyn kara marwooyinkiisa ama qoysaskiisa oodna xaq simi karto xaasaskaaga
anigoo weliba kugu duceynaya inuu ilaahay ku siiyo arsaaqad waasica oo balaaran oo xalaal ah waa haddii aad tahay qof wanaag badan intaa waan ku ogolahay waana ballan qaaday insha allah zawjkayga mustaqbalko waxa ballan iyo axdigu ah marka aan noqdo zawjadaada in aan ku noqon doono raaliyo wanaag badan si Allah subhanahu wa ta'ala iga raali noqdo insha Allah gabadhan waxay tiri sidan waxa jira dad fara badan oo dhahay gabadhan arinka baraanki uu ku yahay oo dhowr cisho kadib waxay dhigi doontaa waxaas waa waxba kama jiraan waa baraanki arinka aniga xaggayga baraanki kama ahan zawjkayga mustaqbalka insha Allah ha ka baqan xabibi waa marka aad noqoto zawjkayga hadii rabitaankaagu noqdo inaad gursato gabadh kale aad waajibkaaga ka soo bixi karto anigu waxaan ku ogolahay inaad gursato dabcan gabaray aniga waan aqbalay zawjkayga inuu gursan karo gabadh kale adigana waxa kugu qasaba inaad aqbashaa dadka dhahay arrinkaasi gabadhan waa ka been igama ahan waa iga dhab dumarow idinkuna waxaa waajib ah aqliyada intaad ka shaqaysiisaan waxa saxda ah rabitaankiina iyo waxa waajibka ah inaad kala saartaan oo ogolaada zawjkiina inay gursan karaan gabdho kale haddii rabitaankoodu noqdo. Assalaamu calaykum.